dabaaldeg weyn ayaa isqabsaday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho waxaa la maqlayaa rasaasta iyo sidoo kale qaylada dad shacab ah oo aad ula dhacsan guusha taariikhiga ah ee uu gaaray senator Muuse Suudi Yalaxow oo 55 cod kaga guuleystay Axmed Xasan Cabdu Axmed Daaci oo ay ku tartamayeen kursiga senatornimo Muuse Suudi Yalaxow ninka kaliya ee dagaalka ugu xoogan ay kula jireen filla Soomaaliya ayaa ku soo baxay doorashada Hirshabeelle taas oo ka dhigan in Farmaajo iyo Fahad aanay u hirgelin damacoodii la xiriiray in kursigaasi ay iyagu helaan Jowhar waxa ka dhacday doorashadii ugu adkayd lana dhihi karo waa tii ugu xiisaha badnayd Muuse afartii sano ee la soo dhaafay waxa uu dagaal xoogan kula jiray Fahad iyo Farmaajo dhankooda waxay dadaal xoogan ku bixiyeen in oday Muuse uusan dib dambe u soo noqon lagana dhigo miskiin siyaasadda ku fashilmay baraha bulshada ayay filla Soomaaliya ku bixisay sida ila xog ogaala ay xaqiijiyeen tiro lacag oo aad u badan iyo sidoo kale shakhsiyaad loo adeegsanayay inay magac dil ku sameeyaan Muuse doorashada hadda ka dhacday Jowhar ee uu ku soo baxay Muuse Suudi Yalaxow ayaa Farmaajo iyo saaxiibkiisii siyaasadda Fahad waxa uga baxday lacag aad u tiro badan oo lagu qiyaasay ku dhawaad milyan laakiin baarlamaanka Hirshabeelle ayaa u bareeray inay mar kale soo saaraan Muuse Suudi oo ku dhiisa bixiyay lacag aan tiro badnayn oo uu ka helay xubnaha mucaaradka Muuse Suudi Yalaxow ayaa wareegga koowaad uga gudbay natiijo aan horay loo arkin taas oo ahayd 51 cod halka wareegga labaad uu ka gudbay isagoo aan tartamin markii uu tanaasulay musharaxii filla Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan tartan aad u adag ayuu la galay Muuse Suudi Yalaxow wareeggii labaad Axmed Xasan Cabdu Axmed Daaci oo naftigiisu ahaa shakhsi saameyn culus leh Muuse Suudi Yalaxow ayaa ka sokow inuu ahaa siyaasi rugcadaa ah saameyn weyn leh haddana ka hor intii uusan senator noqon 4 sano ka hor waxa hoos u dhacay saameyntiisii balse markii uu senator noqday ayuu mar kale sameeyay la falgal siyaasadeed waxa aad loogu xasuustaa hadaladii adkaa ee uu hawada u mariyay madaxweyne Farmaajo markii uu damcay inuu 2 sano ku korsado xukunka sidoo kale waxa lagu xasuustaa doorkiisii la xiriiray garab istaagii uu u muujiyay ciidamadii badbaado qaran ee mudakororsiga ka hor yimid kuwaas oo Muqdisho soo galay markii Farmaajo uu aad isugu dayay in uu meel marsado 2 sano oo dhaafsiisan waxa uu dhigay dastuurka Xaaji Muuse hadda mar kale waa senator wuxuu la hooyday caawa guul iyadoo filla Soomaaliya ay guuldaro weyn kala kulantay kursi ay si weyn ugu dagaalantay guuldarada kursigan ee filla Soomaaliya waxa loo sabaynayaa culayska weyn ee saaran Farmaajo iyo Fahad ee kiiska Ikraan Tahliil tani oo sababtay in musharaxoodii kursigan u baratamayay oo si naflacaari ah wareegga labaad ugu soo gudbay balse dareemay markii dambe in uusan lahayn itaal uu ugu gudbo wareegga saddexaad kuna guuleysto si iskiisa u tanaasulay Muuse guushan waxa ay ku raacday 55 cod oo uu kaga badiyay saaxiibkiis Axmed Xasan Cabdu Axmed Daaci